waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waagi baryaba awbax laga waraabsho waagi baryaba awbax laga waraabsho aqoonta xirfadda cilmi baarista farsamada iyo hal abuurnimadu waa waxyaabaha ay wadamadu isku dhaafaan isla markaana keenta ay qaarkood noqdaan kuwa saaqiday halka kuwa kale ay noqdaan kuwa dadkooda u horseeda nolol tayo leh dugsiyadu waa isha ay ka soo baxaan aqoonta iyo cilmiga casriga ah ee bedela dhaqaalaha iyo hab nololeedka bulshooyinka isla markaana u horseeda horumar haddaba waxaynu barnaamijkeena ku eegi doonaa tayada waxbarashada ee jaamacadaha iyo dugsiyada ku yaala Soomaaliland الرحمن الرحيم magacaygu waa Cabdiraxmaan Cali Axmed waxaan kamid ahay da'yarta ku barbaartay magaalada Burco waxana ku baratay haday tahay dugsigoodii hoose dhexe iyo kii sare ilaa jaamacad imikana waxaan kamid ahay dhalinyarta ka shaqeeya magaalada Burco fiilkan waxbarashadana ku shaqeeyay ee ku guda jira aqoon ahaan waxaan bartay haystaa 2 degree iyo master 2 degreena dalka gudihiisa aan ku bartay masterkana dalka dibadiisa jaamacadda Uganda ku taalo loo yaqaan Kampala University barnaamijkan waxa la iga codsaday bal inaan wax aan ka tibaaxan ka sheego maxaa waxbarashada dalkeena hoos u riday iyo sidaba waxbarashada dalkeena loo kor loogu qaadi karaa ama loo horumari karaa ama loo tayan karaa bismillaahir rahmaanir rahiim sidii wada ogsoonahayba aqoontu ama waxbarashadu waa waxa ummad ama dal uu dal kale uu kaga horumari karo waxa la yiraahdaa educationku is the only weapon that we can change through the world waa hubka khaliya ama waa waxa khaliya ee adduunka lagu bedeli karo oo horumar lagu gaari karo haddaan yaro taariikha aan ka sheekeeyo markii dagaalku ka dhex dhacay Japan iyo Mareykanka oo kale laba magaalo waaweyn oo loo yaqaan Hiroshima iyo Nagasaki oo ku yaala wadanka Japanka bomba lagu dhuftay nuclear wixii dad halka joogay 3 meelood oo 2 meelood way dhinteen ban facility iyo infrastructure dhan burbur badan baa soo gaaray dadkii yaraaya ee soo haray ee odayaashaha intii dadkoodii u yeedheen ay yiraahdeen wada aragta sida leeno galay kadibna inamadii joogay iyo hablihii ayay waxbarasho u direen dadkii soo bartay ayaa haddana dalka ku soo noqday dalkoodii bay waxbarashadii ku sii horumariyeen qaybta tiknoolajiyada awoodda saareen waayo Japan gudaha khayraad kala male waa wada jasiirado aqoonta xilliga ay barteen maanta waxa ay keentay inuu Japan ku noqdo wadanka adduunka ugu tiknoolajiyada sareeya ugu warshadaha sareeya dhammaan warshadaha waxa noo saday baabuurta kala noqotaba Japan bay ka yimaadaan waliba sidaas aan cadaadis xagga horumarka lagu hayaado Mareykanku gaardeynaya marka Japan waxa uu uga jeedaa burburkii waxyaabo ka soo kabtay waxa kamida dadkiisi ayuu tayeeyay ayuu aqooniyay marka halkan waxaan ka arkaynaa laba qof ama ummado ama laba dal waxyaabaha kala hormariya ee isdhaafiya inay aqoontu base ay u tahay sidoo kale diinteen waxa bay noo sheegtayba qof aqoon leh iyo qof aan aqoon lahayn inaanay sinayn haddaba markaan u soo noqono dalkeena Soomaaliland sanadba sanadka ka dambeeya waxbarashada dadka sii galaya aad ayay u sii badanayaan way sii kordhaysaa laakiin dalkeenu ama dawladeenu xagga tayada awoodda ma saarto ee xagga tirada ayay inta badan awoodda ay saartaa oo dadka inoo soo baxaya ardayda jaamacadaha ama iskuulada oo kale waxa weeye aad ayay u badan yihiin laakiin xagga tayadoodu way yar yihiin
taana waxyaabaha sababay waxa kow ka ah waxbarashada ayaynaan mudnaanta aynaan siinin. waxbarashadeenu kaalinta koowaad maaha, kaalinta labaad maaha, kaalinta saddexaad maaha, kaalinta afaraad maaha ayaan is leeyahay. taasina waa ta keentay in arday fara badan oo secondary ka baxday ama digriya oo aan tayo badan lahayn oo aqoontii ay barteen aan ku shaqo tegayni in waxa weeye ay soo baxaan. shakhsi ahaantay haddaan sheego qodobo yaryar oo waxbarashadeenna hoos u dhac ku riday ama waxyaabaha sababay in waxa weeye waxbarashadeennu ay waxa weeye ay hoos u dhacno ay hoos dhac ku noqoto waxyaabaha challenge ama ku barrier-ka ah. kow waxaan u kala qaybinaynaa laba qodob, primary iyo secondary. primary barriers iyo secondary barriers ama challenges. primary waxyaabaha number 1 ka ee caqabada ko waxa kamid ah markaan waxbarashada ku hadlayno waxbarashadii oo gacantii dawladda ka baxday. shakhsiyan aaminsanyahay waxbarashada Soomaaliland ka jirta badankeeda 180 ama sideedaba gacantii dawladda kuma jirto ayaan wax weeye aan qabi karaa. waxa weeye waxa laga yaabaa waxyaabahaas waxa kamid ah imika iskuulada dawladda oo kale ama jaamacadaha kale waxaad moodaa in reer iska yeesheen baad moodaa haddii la islaado qof ka bedela waxa laga yaabaa reer dhan baa kacaya oranaya booskayga baa la taabtay. Hargeysa Bardhawto daway ka dhacday, magaalada Burco waxa weeye daway ka dhacday. waxa laga yaabaa imika jaamacadaha oo kale in qayb iyo segment reer u leeyihiin booska reerkaas ale, booska reerkaas ale, booska reerkaas ale. marka waxaad moodaa in aanay dawladdeedu waxbarashadiiba aanay gacanteeda ku jirin oo aanay control karaynin. waxyaabaha kale sidii uga baxday gacan dawladda waxa kamid ah waxbarashada iyo ganacsi noqotay. ujeedada waxbarashada loo aasaasa haddii si loo aasaasi laga leexiyo waxa weeye marinkeedii way ka baadhaysaa iyo horumarkii lagu talagalay teedii lagu talagalay. marka waxbarashada iyo ganacsi ay noqotay qofba isagoo aan waxa weeye waxba aan qori karin waxba aan akhri karin oo ganacsada ah ayuu ama jaamacad aasaasaya ama iskuul aasaasaya for the purpose of the income or the economy. waxyaabahaas markaa waxyaabaha keenayaan. sidoo kale kamid ah waxyaabaha gacantii dawladda ka baxday waxaan oran karnaa dee waxa weeye iskuullada iyo jaamacadii waxa lagu dhiganayaaba manhaj aan dalkeena aan hayn oo dalalka laga soo waariday ama ha noqoto Sacuudiga, Pakistan, Ingiriiska, Kenya meelo kale. markaasaa weliba waxaad arkaysaa iyadoo xilliyada fasaxa la xayeysiinayo oo iskuulku ama jaamacadda oranayso waxaanu raacaynaa manhajka dalka Ingiriiska, waxaanu raacaynaa manhajka dalka Mareykanka, iyadoo ardayda waxa weeye waxyaabo kale markaa waxa weeye loo dhigayo oo aan curriculumkii iyo waaqicii dalka aan ku salaysnayn. marka waxaan kara kow caqabadaha hoos dhigateeda waxbarashada waxa number 1 ka ah waxbarashadii oo ka baxday gacantii dawladda. haddaan soo koobo qodob kale waxaan karaa macallimiinta wadanka ka shaqeysa oo aan mihnadii ama xirfadii macallinimo aan lahayn, sidoo kale tababarna aan qaadan karin. tusaale aan ku siinaya askarigu haddii aanu xerada darweyne aanu soo gelin tababar aanu soo noqon dawladda difaaci kari maayo. qof shacab oo leeyahay cadowga la dagaalano fronto qabo ama waxan qabo dee taad kiska wixii garanaayo. marka askarta ma noqdo boolis ama military waa inuu xerada darweyne ama iskuulka soo gala tababar soo qaata kadibna saa ku shaqo gala. dawladdeena dhan ee Somaliland ma laha jaamacad ama iskuul waxa weeye macallimiinta ay si gaar ah ugu tababarto kadibna ardayda ay wax sii baraan. marka waxa laga yaabaa taasina waxay noqotay waa lack of qualified teachers in waxa weeye ay iskuuladii ay joogaan. sidoo kale macallimiintii aqoon kororsi iyo training aan la siinin. sidoo kale waxaan jirin facility adeegyo kala dheeraada. iskuuladeena laboratory bayaalaan fiilal ardadii loo saariyo ma jiraan. taasina waxay ka qayb qaatay tayo la'aantii iyaduna ay ka qayb qaatay. iskuulada dawladda waxa laga yaabaa hay'ado yar baa sanadkii imanaya in yaroo equipment iyo laboratory siinayaan bestibu soo noqon maayaan. deetiyada aan la isticmaalin ayuu sidii agentsiska ama chemicalskan ay ku dhacayaan. waayo de macallin cilmiga yaqaan iskuulkii ma joogaba ardaydina laabkii la gelmaayo. waxyaabahaas waxa weeye dhibta keeni karaya.
taasina waxa weeye waa lack of qualified and training teachersku macallimiin aan tababar iyo xirfad iyo professional aan ahayn oo waxa weeye ka shaqaynaya goobii waxbarashada. qodobka saddexaad kale waxa kamida de manhaj aan midaysnayn oo waxa weeye lagu dhiganayo iskuuladii iyo jaamacadii. manhajka waliba dawladdu ay dejisaana maaha mid tayaysan maaha. marka waxa weeye manhajka diversity kala duwan. waxaad arkaysaa iskuulkan wuxuu dhiganaya ardaydiisa manhajka, iskuulkan kalena wuxuu dhiganaya manhajka. hadhow tolo jaamacadii ama suuqii waxa isku imanaya arday soo dhigatay manhajyo kala duwan. marka manhajka laga hadlaayo war manhajku waa master plan, waa qorshe, waa master plan la dejiyo. waxa lagu select gareeyaa contents and organized learning experience. casharo inta ugu muhiimsan ee contentska ayaa lagu sareeyaa. dadka waxyaabaha la select gareeyay ee contentska waa in qofka learnerska ah ee aqoonyahanka ee ardayga ee wax baranaya waa inay waxa weeye behaviorskiisa iyo insightkiisa waa inay develop gareeyaan oo ay tanti gareeyaan. marka manhajkeena dalka ku jira ardaydeena ka soo baxaysa iskuuladii jaamacadaha miyaa la oran karaa behaviorskooda iyo insightskooda ayuu tanti ku sameynaya oo develop ku sameynaya? waa maya. haddii curriculumka ama manhajkaagu waxa weeye uu liito ardaygii bay saameynaysaa, kadibna arday bilaataya ayaa soo baxaya. marka manhajku waa muhiim, waxaanu ka mid yahay waxa weeye waxyaabaha dawladuhu ay isha gaarka ay ku eegaan. maalin baan Hargeysa tagayo hotel waxa weeye Imperial loo yaqaanaan galay. manhajkii dalka ayaa lagu dejinaya. inta macallimiinteennii loo yeeray ayaa inamo yaryaroo Kenya ka yimi ayaa manhajkeennii ku gaargaraynaya oo la dejinaya oo samaynaya. marka committee dhan oo ku tababaran in manhajkii waxyaabaha ay sameeyay dawladda ma sameeyay. marka inageenii manhajkeennii la inoo samaynaya waxa weeye waxyaabo ku qoran meel kale marka waxa weeye la inoo soo forward garaynaya. marka waxa weeye dhibaatada saddexaad ee waxbarashada tayadan hoos dhigayso koow waxa kamida in manhajkan haysanaana uu aad u hooseeyo. sidoo kale manhajyo kala duwanna dalkii waxa weeye dee lagu dhigayo. qodobka afraad ee oran karo dee hoos ayay waxa weeye u dhigaysaa waxbarashada ama tayadii. waxaa ka mid a dee aqoontii ama waxbarashadii ama educational institutionkii goobihii waxbarashada oo gacanta u galay dad aan ehelkoodii hayn. dadaan ehelkoodii hayn ayaa gaargaraynaya. waxaa laga yaabaa qof ama bagaash iibinaya ama qof warshad ka haysta ama qof jaad iibinaya ayaa iskuul furanaya ama jaamacada furanaya oo wuxuu furanayaa for the purpose of the income, inuu dhaqaalo uu ka helo. waxaad arkaysaa wasiir aan ehelkeeda hayn wasaaradda waxbarashada loo magacaabayo, agaasimo loo magacaabayo, isuduwa loo magacaabayo, gudoomiye waxaad arkaysaa jaamacadeeda waxa weeye loo magacaabayo, maamulayaal baad arkaysaa. marka waxa weeye dadka u heelka ah waxbarashada haddii waxa weeye laga duwo oo dadaan ehelkoodii hayn loo dhiibo, taa waxa weeye waxaa ka dhalanaysa tayadii waxa weeye ay yaraato. waayo dadkani dee ma manage garan karaan. marka afartaa qodob waxaan odhan karaa de waa primary challenges oo caqabadaha koobaad ee waxbarashadeena hoos u ridaya. caqabadaha kale secondary challengeska ah ee tayada waxbarashadeena hoos u dhigaya waxaan odhan karaa kow waktiga waxbarashada la doonayo in la qaato oo dayar. waxaa laga yaaba taqaanaa iskuuladeena 7:15 ama 7:40 baa xiisado bilaamano iskuulada la galaa iyadoo aan 12 gaadhin waa laga soo dareeraya. haddii aad cilciliso xitaa nuus saacaha aad ka jirto 2 saacadood iyo badh ayaa laga yaabaa ama 2 saacadood badh wax ka yar in ardayga xiisadii u qaato oo ardaygii imika ka tegay gurigiisa ka tegay inuu hadda markiiba ku soo noqdo. wadamada jaarka haddii aad u fiirsato sida Ethiopia ama Kenya kale 6 subaxnimo iyo 6 barka ayuu xiisado bilaamaan 4 galabnimo way ka soo baxaan. wadamada qaar baa 8 saacadood ardayga la hayaa wax loo baraa.
marka arday 2 saacadood iyo badh sideebaad wadan kaloo dhigaaga aad ula tartamaysaa ta kale dhibaatada soo kordhay waxa weeye maalmihii wiigee loogu talagalay 6 cisho in waxbarashada deela dhigtaba ayaa waxa weeye iskuuladii ay maalmihii barjareen inka khamiista lama dhigtay iskuulada tootaliba isagoo markii hore waqtigiisu yaraa ayaa haddana maalmihii waxa weeye bar ka mid laga sii jaray haddii aad waxa weeye waxbarashada waqtiga loo huri waayo oo waqti badan la sii waayo sideeba midhaha loo goosanayaado aqoon aad ku helaysaa oo inaad deeto dadka dhigaaga competency aad la galaso aad la tartanto competition sideeba ku gaaraysaa magaaladeena waxa laga yaabaa wasaaradda waxa u qorshaysan 7 buuraan iskuulada la galo laakiin iskuuladii dawladda iyo kuwa bareefadooda dawladdu uma dhagalugla taasi waxay keenaysaa in 7 iyo 40 qarxiisidii waxa weeye ay galiyeen iminka iskuulada dawladda khamiista waa la tagaa waxa la waxa bareefadada Soomaaliya magaalada Burcaan Hargeysa ku yaalana khamiista cidi dema tagto hadii marka wasaaraddeena kale ilawaaniga kuuri waxbarashada gacanta kuma haysee hadii gacanta ay ku hayso awaamiirteeda ayaa loo dhagaluglaan lahaa oo waxa weeye khamiista 10 barka laga soo bixi lahaa oo kawda ayaa waxa weeye iskuulada laga soo bixi lahaa qodobkaasina waa qodob aad u muhiim ah isagoo wuxuu ka qayb qaatay in waxbarashadii tiyadeedii ay hoos u dhacdo qodobka kale ee aan oran karo wuxuu aad uga qayb qaadanayaa in tayadii waxbarashadu ay hoos u dhacdo kara fasal ama class loogu talagalay in 30 ama 25 arday ay wax ku dhigtaan ayaa waxa laga yaabaa galaaskii in 80 arday ama 100 arday la fariisiyo bal adan ku dhiibay galaas 100 arday ay fadhiyaan sideebuu macallinku u manage karan karaya sideebuu macallinku waxa weeye ama qofka lecturalka ah uu xiisadii u gaarsiin karaya sideebuu ardaygu su'aal dooni uga jawaabi karaya sideebuu markuu u diro exercise ama questions uga sixi karaya hal arday hadii uu hadlo ama 3 arday hadlaan class managementiga ayaa lumaysa ama class counter ayaa lumaysa dadka laga yaabaa macallinkii 2 ama 5 ama 4 ama 10 arday ugu horeeya inuu xiisadu ka fur yeelo dabeetana inta dambe oo dhan arday dambe ay dadka xaraabaysato oo waxa weeye waxbarashadu aanay gaarin ay noqoto waayo marka 100 arday galaas la gelinayo ujeedada meesha loo furay maaha waxbarasho in dad wax la bara maahe waa qaab ganacsi waana waxyaabaha aadka iminka dhibaatada nagu haya in hoolal waaweyn la samaystay kadibna 100 arday si cost minimization loo sameeyo oo iskuulka lacag fara badan u helo tayadii ardayguna waxa weeye ay u lunto igana waa qodobkaasna muhiimka ee tayadii waxbarashada inuu hoos u ka qayb qaatay waxa kamida waalidkii oo kaalintiisii gabay waxa weeye ardaygan inay tayada waxbarashadiisa ay hagaagto iskuulku waa kaalinta koobaad wasaaraduna waa kaalinta labaad kaalintii saddexaad waalidka meesha ka baxday waayo waxa arkaysaa waalid ilmihiisu iskuulku dhigta aan garadayn kalaaska uu yahay aan garadayn waxa weeye sidoo kale waxbarashada heerka uu ku yahay aan garadayno inuu waxbarashadu ku fiican yahay inuu ku xun yahay iyo kaalinta uu gala iyo aan garadayn waa dhibaato imika soo baxdayo waxa weeye waalidiintii waaweynada hore ardayga way la socon jireen laakiin dhalinyarta ama da'dan dambe facii dambe ayaa dhalay dabeetana markaa waxa weeye mas'uuliyad badan ba iska saari maayaan taasina waa problem guriga internet lagu xiraya mobile waa smartphone ardayga isticmaalaya in waxa soo dhan la control ayaa fiican oo waxa weeye xiriir ka dhaxeeyo waalidkii iyo iskuulkii si ardaygu u boqdo waxbarashadii waxa weeye uu socdo marka waxa weeye waxa oran karaa waalidka laftiisu kaalintiisii wuu gabay qodobka kale aan ugu dambaysiinayo waxyaabo waxbarashada hoos u dhigaya waxa kamida war qofka bini aadanka ama ha noqdo shaqaale ama ardayga wax baranaya hadii aan promotion ama dhiirigelin aan la siinin waxa weeye dissatisfaction ama niyad jab ayaa ku dhacaya wasaaradda waxbarashadu roolkii ay ku lahayd ardayda inay dhiirigeliso way gabtay waxaanay dhiirigelisaa
ardayda waxa weeye aan dadaalin bay dhiiri gelisaa anigu berigeygii dee qofkaasi A buu ku dhaafay A buu ku baaskaroobi ama B buu ku dhaafay ama C ama D buu laakiin maxaa la soo saaray D plus D normal D negative ardaygu waa inaanu dhicinba waa inaanu dhicinba marka dee halkaana dhiirigeliyaanta ba ka dhiman iyagu meesha waxa la isku haystay top 10kii meesha waa laga saaray iyo top 10kii wuu jiraa waxyaabahaas hadii waxa weeye la isku haystay ardaygu markuu maqlo top 10kii meesha waa laga saaray scholarship ma lihid hore maxaad ka dadaalaysaa badee iska daabooda soconaya marka qodobada aan sheegay waxa oran karaa waa waxyaabaha waxbarashada dalkeena hoos dhaca ku keenay shakhsi ahaan haddaynu eegno possible and potential solutions to solving existing problems waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagu xallin karo dhibaatooyinka aynu soo sheegnay waa iyada waxyaabaha aan soo sheegay ee negative-ka ah waxa weeye dee positive laga dhigo oo waxa weeye meesha laga saaro aan waxaan u soo jeedin lahaa dadka dawladdu ay mas-uul uga dhigtay waxbarashada waxa weeye haddii dawladdu ay kala xisaabtami weydana ilaahay waxa weeye uu kala xisaabtamayo waayo qof kasta wixii la raaciyey ayuunba mas-uuliyaddiisu ay tahay anigu waxaan soo jeedin lahaa kow in macallimiinta training la siiyo in tababar la siiyo oo waxa weeye xarun loo furo waxa weeye ay ku soo qaataan subject matter professional sidoo kale la siiyo programyo building capacity ah aqoontooda kor u qaadaya in la siiyo qodobka ugu muhiimsan waxaan kalaan u soo jeedin lahaa war in manhajkan maanta aynu isticmaalno ee diversity kala duwan in unification lagu sameeyo la mideeyo oo unification of guarantee curriculum manhajkan in la mideeyo oo wadankoo dhan waxa weeye dugsi hoose dhexe sare jaamacad manhaj dawladdu ay leedahay ولدشو وحي اسكو سكندري منهج وحي بريمري وحي سدا وحي اسكو ليفل كاس منهج waxa weeye wadanka saaro oo meesha laga saaro manhajyadan kala gaargaarka ah ardaygu isagoo aan dhulkiisii aan kaba boganba oo aan kala garadeen ayaa waxa weeye wadamo kale tuulooyinkooda iyo buurahooda looga sheekeynaya haddii maanta looga sheekeeyo magaalo kale oo ama dalxiis ama wax kale aanaanu garadaynin marka waxa weeye waa in ardayga la baraa culture-ka ama dhaqanka wadankiisa iyo khayraadkiisa iyo deegaankiisa iyo juqraafiga waxyaabaha in la baro ayaa fiican oo waxa weeye manhajkeena lagu soo daro waxyaabaha ka oran lahaa waa in la sameeyo the unit ama standard lagu cabiro performance level ka waxbarashada meel laga duulo assessment waa la sameeyaa wax lagu qiimeeyo waxbarashadeenu 2018kii halkii ay mareysay ma hoos bay uga dhacday sokor bay uga socotay intaas aan soo gabagabeynaya waxyaabahan u arko in waxbarashadan hoos dhac oo ku dhacay iyo waxyaabahan u arko in solution ama xal aynu arki karno aad iyo aad bad muhiim intaasi ayaan ku soo afmeernaa barnaamijkeena gaarka ah ee ku eegnay tayada waxbarashada ee dugsiyada iyo jaamacadaha ku yaala Soomaaliland waxaana barnaamijkii la soo siinay anigoo ah Axmed Awl Abdullaahi Axmed Kaaf barnaamijka mid la mid ah intaanu ku kulmi doono waxaanu idinka tagnaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh